Ciidamada ammaanka ayaa goordhow waxa ay gacanta ku dhigeen eedeysane Cabdisalaan Cali Axmed oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay falkii lagu qaarijiyay Allah u naxariistee Cabdulaahi Cali Hudey oo dhowaan lagu toogtay bartamaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud si weynna bulshadu ay uga xumaadeen. Ciidamada ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay ka baadigoobayeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, iyadoona gacanta lagu soo dhigay gudoomiyaha degmada Gurceel Faarax Cabdi Macalin oo qayb ka ahaa baadigoobka eedeysanahan maalmihii la soo dhaafay, ayaa waxa uu xaqiijiyay in gacanta laamaha amniga uu soo galay isla markaana cadaaladda la hor keeni doono, iyadoona falkii lagu qaarijiyay Cabdulaahi Cali Hudey bulshadu ay aad uga xumaadeen isla markaana banaanbaxyo ay ka dhigeen ayna dalbadeen in cadaaladda la hor keeno falkaasi ciddii ka dambeysay. Soo qabashada ninkan ayaa waxa ay wax weyn ka bedeli doontaa kiiskaasi oo taagnaa si weyn looga hadalhayay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug iyo sidoo kale guud ahaanba dalka Soomaaliya, iyo kiisaskii kale ee ka horreeyay laguna qaarijiyay dad aan wax galabsan bartamaha deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Sidoo kale arrintan ayaa waxa ay horseedi doontaa gacan ku dhiiglayaasha in la soo qabto fal-dambiyada ka geysanaya bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Dadweynaha ayaa si weyn waxa ay uga dhur sugayaan arrintani, iyadoona ay isha ku hayeen maalmihii la soo dhaafay, ciidamaduna si weyn ay uga howlgalayeen qaybo ka mid a gobolka Galgaduud. Ugu dambeynna gacanta lagu soo dhigay maamulka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaana kaalin weyn ka qaatay, sida muuqatana gudoomiyaha ayaa qayb ka ah howlgalka lagu baadigoobayay, iyadoona ugu dambeyn ninkan eedeysanaha la soo qabtay dhowaana cadaaladda la hor keeni doono sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Waxyaabaha ka soo kordha halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa. Muuqaalkan sii sheer garay oo la wadaag saaxiibada Facebook kugu helinaya si fariintani shacabka Soomaaliyeed ay u gaarto, maadaama arrintani ay ka dhur sugayeen ayna si weyn u dalbanayeen in Cabdulaahi Cali Hudey uu cadaalad helo, maadaama si xaq darro ah bartamaha degmada Gurceel oo bareer ah loogu toogtay xilli uu howlihiisa shaqo ku guda jiray. Dadweynuhuna ay aad uga xumaadeen arrintaasi. Kusoo biir page-ka oo ka mid noqo saaxiibada ku xiran, aragtidaadana waa inala wadaagi kartaa hawshani sida ay u dhacday amaba aad u aragto, maadaama ciidamadu ay baadigoob ku jireen maalmihii la soo dhaafay.